kulankani oo shir gudoominayay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinda Jaamac Xirsi Gaani ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo agaasimo waaxidiyada wasaaradda. Kulankaasi ayaa waxa la isiga xog wareysanayay waxyaabihii uu qabsoomay wasaaradda sanadii 2019 iyo diyaarinta qorshaha wasaaradda ee sanadka 2020 loona dardargelin lahaa howlaha shaqo ee wasaaraddaasi. Kulankaasi ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Marwo Hinda Jaamac Xirsi Gaani waxaana ay tidhi runtii kulankani wuxuu ahaa shir ay wasaaraddu u leedahay si khaas ah kaas oo lagu lafagurayo wixii laga bartay sanadkii 2019 howlqabadkii aan u haynay adeega bulshada iyo wixii noo qabsoomay sidoo kale lagu diyaarinayay 2020 maxaa noo qorshaysan run ahaan waxa halkan lagu lafaguray wax fara badan oo ay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku u qabatay bulshada reer Soomaaliland haday tahay dhanka shaqo-gelinta haday tahay dhanka shaqo abuurka haday tahay dhanka arrimaha bulshada haday tahay dhanka cilmi baarista ama xog ururinta haday tahay dhanka naafada haday tahay dhanka cududda shaqaalaha hadii ay tahay waaxda arrimaha haweenka iyo qoyska dhammaan iyo armanka iyo qorsheynta wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska ama se aan idhaahdee waaxda maamulka iyo lacagta iyo waaxda qorsheynta dhammaan waxa la isla lafaguray in wixii wasaaradda u qabsoomay madashan lagaga wada hadlo wixii la isku dhaliilayay iyo wixii la isku amaanayay intaba loona diyaar garoobo qorshe cad oo laga dheeganayo strategic plan-ka ama qorshaha shanta sanadood ee ay wasaaraddu leedahay ee laga soo dheegtay qorsheynta qaranka ku talagalkeedii NDP2 iyo xeerkii ama buugii ololihii xisbiga kulmiye ee xukuumadeedu maanta ay talada dalka hayso dhammaan waxay u dhaceen si aad iyo aad u qurux badan wixii qabsoomay wixii aan qabsoomin dhammaantood wasaaraddu waxay dhammaystiri doontaa wixii aan u qabsoomin wixii u qabsoomayna waxaan ugu mahad celinayaa shaqaalaha wasaaradda oo dhammaystiran oo ugu horeeyo agaasimaha guud agaasimo waaxidada iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska gobolada iyo degmooyinka iyo xarunta guudba. Nagib Abdullahi, Telefishinka Caalamiga ee Bulshada magaalada Hargeysa.